بيجاه كذا ولا يا شيخ والله كتباي وروح قلبي كناع وأفك شيء. kadib amar sar oo ka soo baxay xafiiska taliyaha guutada toddobaad qaybta 12 Abriil gaashaan la sare Axmed Gaashaan waxaa maanta si dardar leh u bilowday howlgal dhowr jiha ah oo ay si wada jir ah u fuliyeen ururada 64 iyo 54 guutada toddobaad qaybta 12 Abriil iyo ciidamada booliiska degmada Walaweyn. howlgalka oo laga fuliyay inta u dhaxaysa Walaweyn iyo Afgooye ayaa lagu soo qabqabtay dhowr xubnood oo ka tirsan qawaariita waxaana howlgalka hogaamiyay taliyaha ururka 64 guutada toddobaad qaybta 12 Abriil dhamme cali cabdullaahi halac iyo taliyaha booliiska degmada Walaweyn gaashaan la dhexe Cabdulle Isaaq iyo taliyaha ururka 54 guutada toddobaad qaybta 12 Abriil. goobaha howlgalka sida gaarka loogu fuliyay waxaa ka mid ah Doonka, Tixsiile, Guurdaan, Warmaxan, Buulaxanshi, Sharrey, Tabeelaha. saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa xaqiijiyay inay gacanta ku soo dhigeen 3 maleeshiya oo ka tirsan qawaariita kuwaas oo ku dhuumaaleysanayay deegaanadaasi. dhamme cali cabdullaahi halac ayaa ugu dambeyn bulshada ku booriyay inay la shaqeeyaan ciidamada si loo xoojiyo nabadda iyo xasiloonida guud ee gobolka. Rahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salaam la socotaan meelisan tirugdan ciidamadan wal dhibaato kala kulantana talan dhibaato jeesida jira ya haye okay aniga waxaa la yidhahdaa cali cabdullaahi halaxa oo ku magac dheerahay taliyaha ururka 64 ee Walaweyn deganahay ninkaan la hadlayana waa taliyaha saldhigga degmada Walaweyn. waxaan rabnaa wixii maanta ka bilowda wadadan wiil yaro dacaslaa kuma sii qaadi doono waana laga gaadhay. waxaa idiin sheegay dadkiina shacabka oo la degano kuwa ay ugu badan la shaqeeya hadda halkaan fadhiya warbixinta naga u geeyay ama haddireeno hal dhinteen ama meeshan ha baneeyeen qafka ay cashuur ku qaadayaan iyo asagu waa isla hal laga fogaan wixii maanta laga bilaabo ana ku fulilayna awaamiirta taliyaha guutada iyo saraakiisha ka sarreeyay waxa amar lagu bixiyay Warmaxan iyo Afgooye inta u dhaxeeyay qaf shabaab cashuur kuma qaadi doono. haddii ilaahay inaan dhimanno iyo inay nadiin noqoto labadaas ay mid noqdeen dadweynihiina waxaan ka rabnaa laba maada mid yala ama nala shaqeeyo ama kasbara labadaas mid sameeyo waxaan rabnaa haddaan idinku garab noo ahayn annagu waxba ma qaban karno. waxaan rabnaa waxba ma qaban kartiin laakiin inaad dhahdiin halkaan u joogaa halkaasoo galay meeshaas soo fariis intaas kale maxay idin dhibe annagu macana magaala in leegna laa ilaaha illa allah muxammadur rasuulullah sallallahu alayhi wasallam aleenahay magaalana gaal waxaa midka maalka adiga soo shaqaysatay inuu kula kala bartaro annagu maalkaagana ma rabno naftaada inaan ilaalinaan rabnaa qof bili aadan wax uu bixiyo waxa uu qaalisan dhiigiisa ummadda waxaan u bixinaa dhigana habeen iyo maalina u soo jeedna miinadaas aan kor maraynaa ilaa aan dhimanno inaan hawsha qabnaa dhammaadkoodu maxaa waaye Soomaaliya xor iyo iyada guul la galayso. marka waxaan rabnaa dadka nagiyo inaad ciidanka dowladda ka xariirtiin marab inaad u soo xariirtiin rabnaa cid idin dhibaateeyada iyo cid maalkiina rabta iyo cid waxay idin dhibayaan wax hadda waxay idin ma jira meesha magaceed oo weyn ma leeyahay ومن وماشي عيدك الباقي ما كانوا يجيبين ولا بيجاه كذا ولا يا شيخ والله كتباي وروح قلبي كناع وأفك شيء